meel walba ay joogtaan dhegeystayaal ismaqal wanaagsan qaybihii dhexe ee barnaamijka xog waraysi idaacadda kulmiye ee Muqdisho ayaanu soo gaaray markaan warar ku saabsan koonfur galbeed ayaanu eegaynaa in ka badan 30 oday kana soo jeeda gobolada Baay iyo Bakool ee Soomaaliya ayaa la filayaa in maalmaha soo aadan ay yimaadaan magaalada Muqdisho ujeedkay u maanayaan waxa ay tahay odayaashaasi sidii xaaladiisa iyo sideynta wadaadka Muqtaar Roobo Cali oo Mansuur ugu xiran dawladda federaalka ee Soomaaliya ay kala hadlayeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo warar arintaasi ku saabsan waxaan ka waraysan doonaa oo haatan qadka si toos ugu jiro Nuur Ibrahim oo ah siyaasi ka soo jeeda deegaanada koonfur galbeed Nuur waadi maqashaaye bal waxaad iga warantaa xaaladda odayaashan ay Muqdisho u maanayaan walaalow si fiican waa ku maqlay markuu warayso 100% idaacadda raadiyo kulmiye waa salaameeya marka maysin lahaa in idaacadda 100% warbaahinta kulmiye ee diyadan faylata nabadiyow marka odayaalka dareeran magaalada Baydhabo ku dareeran odayaalhan dareeran dhaliga dawladda federaalka Soomaaliya qaasatan may fadayaan in la kulmaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo mufaan waa gartay marka mayna dareerana sideenta Sheekh Muqtaar Roobo Cali oo Mansuur in wada hadal kula galaan dawladda federaalka Soomaaliya waaye haddii aad siyaasiyiintii ka soo jeeda deegaanada koonfur galbeed maxaad kala socotaan xaaladda caafimaad ee wadaadka Muqtaar Roobo Muqtaar Roobo waa maqlaynaa bariyahan warbaahintan ka maqlaynaa inay xaaladiisa aad iyo aad u dhibto marka maylana ani oo xaaladiisa mayn warqabna ani hata dhiibit la sheegahay laakiin wala soo dhabe una ku warhayna abirato ilaahay warmale gacanta dawladda federaalka Soomaaliya ka jar walba mas'uuliyadda iyo hayan yoona la kala xisaabtamo doon reer deegaan koonfur galbeed diiwnaan odayaashan aad leedahay way imaan doonaan Muqdisho oo madaxweynaha ayay doonayaan inay la kulmaan goorma imaanayaan caasimadu tiradoodu waa imisa filani sheegi inay saxiixyaalka oo malaaqyada digli mirfadka koobanyiin intii saxiixyaalka hayti inuu hanjeedan magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya oo la kulma fadayaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo arrinta ka saabsan Muqtaar Roobo iyo haragshay iyo hata xaaladiisa inay kula hadlaan eediyad iyo fadayaan waana nin guul ku jeeran eediyad unan rajeen marka odayaashu waqtiga imaanayaan maxaad nooga sheegi kartaa waa maalmahanba waa la filayay laakiin arrimo kale oo sida dibadha aan dareemayno marka inay maalmaha soo socda inay kusoo aadayeen magaalada Muqdisho aan u malaynayno rajada aad ka qabtaan in Muqtaar uu dib u helo xorriyadiisa intay la egtahay rajada aan ka qabno wadaadka Muqtaar Roobo rajadiisa 100% aan ka qabnaa in aan rajo aan ka helno haddii ilaahay dawladda federaalka Soomaaliya waa ogtahay ninkaas nin dambiile ma ahan waa nin oo u socday musharaxnimadiisa waxaan rajaynaynaa in oo si fiican ay ula hadlaan odayaasha haddii imaadaan ayna soo dayaan haddii ilaahay misaasan rajaynayna odayaasha ka soo jeeda gobolada Baay iyo Bakool mar maahan laba maahan oo ay warbaahinta la hadlaan kuna dhawaaqaan arrimo ay ka mid tahay tusaale oo kale odayaal dhawaan shir jaraa'id ku qabtay Muqdisho waxa ay dawladda u qabteen muddo kooban inay ku sii deyso wadaadka Muqtaar dawladdu go'aankeeda ayay wali ku adkeysanaysaa odayaasha koonfur galbeed dhowr jeer way hadleen kuwan imaan doona caasimada ee la rajeynaya maalmaha soo aadan ay yimaadaan Muqdisho maxay kaga duwan yihiin kuwii hore u hadli jiray shirarka jaraa'id u qaban jiray sheegi jiray in Muqtaar xoog ay ku soo furanayaan dadkan waa dad dhaqankii marjacii loo laabanayo koonfur galbeed ay ku soo jeedeen dadkaasi oo ah saxiixyaalkii oo malaaqyada digli mirfle waxaan rajaynaynaa inay imaadaan magaalada Muqdisho go'aanka ugu dambeeyay qoomiyadda digli mirfle iyaga iska leh ayagana ka gaari doona haddii ilaahay qoomiyadda digli mirfle go'aankeeda Sheekh Muqtaar Roobo waa nin deegaanka koonfur galbeed ka soo jeeda ayna u dhashay qoomiyadda digli mirfle marka marjicii loo laabanayo oo go'aanka ugu dambeeyay ka gaari lahayn waa dadkaas soo ma ahan in madaxdii ka soo jeeda koonfur galbeed tusaale gudoomiyaha golaha shacabka madaxweynaha koonfur galbeed lafta gareen inaad ku cadaadisaan in wadaadkan dib u helo xorriyadiisa inta aad odayaal ahaan Muqdisho imaataan oo muddo aad ku rafaadaan inaad la kulantaan madaxweynaha kadibna aad iska laabataan soo kama haboono in gudoomiyihii golaha shacabka ka soo jeeda deegaankii iyo gudoomiyaha ama madaxweynaha koonfur galbeed lafta gareen aad ku cadaadisaan inay ka dhabeeyaan soo deysmada wadaadkan Muqtaar Roobo xaaladiisa lafta gareen waa ka dherigsan yahay Maxamed Mursal Sheekh Abdiraxmaan waa ka dherigsan yahay marka gabi ahaantooda ayagana dhanooda ay ka wadaan xoosha odayaashana waa inay soo galaan waa laga maarmaan ay noqotay marka waa dadkii marjacii ugu dambeeyay loo laabanayo oo go'aan ka gaari lahay qoomiyadda digli mirfle masiibkooda waaye
marka waa dadkii lafta gareen iyo keenay iyo maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan waa dadkaasi ayna ka dambeeyaan ayna ka hadal dheegayaan ee qoomiyadda digli marflan ay lagala hadlayo hadalkooda waa malaaqyada kasoo jeeraan digli marflo waaya haddii dowladda federaalka ee Soomaaliya madaxdeeda go'aanka haatan Mukhtaar ay ku xireen ay ku adkeystaan odayaasha koonfur galbeed maxay sheegi karaan odayaasha koonfur galbeed waxay u sheegi karaan in oo wada hadal rasmi ah ay la galaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayna u sheegaan wax alaal waxay lagu fududay karo howshiisa Sheekh Mukhtaar Robow Cali Abu Mansuur oo ah nin oo aan dambiile ahayn oo ah nin oo xur iyo halaalnimo meeshaas ku tagay oo musharax ahaay oo aatana saxaq daraca meeshan ugu xiran waxaan u rajaynaynaa odayaasha in si fiican madaxweynaha ula hadlaan ayna guul ku dhamaato wada hadaladaas haddii ilaahay midna ugu dambeysaan rajaanka leeyahay waa taas waaya waa maasanta nuur adaa mudan waayahay dhegeystayaaalkaasi wuxuu ahaa siyaasi Nuur Ibraahim oo ka soo jeeda deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya oo si dhow ula socdo xaaladda odayaal rajeynayo oo ka soo jeeda gobolada Baay iyo Boqol kuna dhow ama ka badan 30 oday inay yimaadaan magaalada caasimadda ee Muqdisho kuwaas oo jeedkoodu uu yahay sidii ay uga warbixin lahaayeen ama u ogaan lahaayeen xaaladda caafimaad ee wadaadka Mukhtaar Robow iyo sidoo kale sidii madaxweynaha Soomaaliya ay uga kulmi lahaayeen sideesmada wadaadkan oo in ka badan 6 bilood u xiran dowladda federaalka ee Soomaaliya isaga xilliga la soo xiray Mukhtaar waxa uu ahaa musharax u taagan xilka madaxtinimada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya wixii waray ku soo kordho radio kulmiya ayaad ka dhageysan doontaan hadduu alle wali waxaad dhageysanaysaan barnaamijka xog waraysi